بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بهذا كبدا عكتا الصوماليات حريق صومالي كبدا عكتا ينادي هر قرن مسؤولين تكفى إذا قبل كبنادر وقول رأيو أقاسمها إن واحدة howlaha guud sidoo kale halkan ay ku xusin yihiin gudoomiyaasha degmooyinka gobolka isboortiga gobolka Banaadir oo ayaguna kamid ah bahda kubadda cagta iyo marti sharafta kale dhamaantiin habeen wanaagsan aniga ku hadlayo magaca xiriirka kubadda cagta waxa sharaf noo ah inaan ka soo qayb galno bandhigan ay soo bandhigayeen shirkadda isboortiga qalabka isboortiga ee Etosat runtii taariikhdeedii iyo waxay soo qabatay dhamaanteen waa wada daawanay ayadoo kooban waxaan rabaa kaliya inaan halkan ka xuso Etosat markii ay ku soo biireen saaxada qalabka isboortiga waxay ahayd waqtigii oo xiriirka kubadda cagtu u fidiyay in ay ku dhiirigeliyaan inay dalka maadaama ay go'aansadeen inay dalka qalab isboorti keenaan dhiirigelintii lagu dhiirigeliyay ama isbarashadii xiriirka kubadda cagta ee Etosat waxay sanadkii 2013 oo ahayd markii la aasaasay waxaan mudan maantay oo sanadka uu yahay 2020 muddo 7 sano ka soo wareegtay in ay tahay horumar muuqda ay maanta soo bandhigtay waxa laga yaabaa markii 2013 14 iyo maanta meesha ay marayna aad u kala duwan tahay xiriirka kubadda cagtu fursado badan ayuu la abuuray Etosat sidii ay u gaarsiin lahaayeen qalabka bahda kubadda cagta inkastoo aysan ku arkeen kubadda cagta sidoo kale ay isboortiga kalena ay runtii dhiirigeliyaan sida basketballka iyo orodada kuwa la midka ah inta kadib markaan u soo noqdo munaasabadan xiriirka kubadda cagta bandhigan qayb intee la ku leeyahay qaybtan ku leenahay bandhiga waxay tahay Etosat markaan aragnay inay dadaal ugu jiraan marba marka ka dambaysa inay kor u qaadayaan tayada iyo tirada keenida qalabka isboortiga kala duwan isla markaa ay raacayaan shirkadaha qalabka kale caalamiga sameeyo qaabkii wax u sameeyaan markii dambana ay isku dayeenba inay sameystaan warshad u gaara oo ayagu ay qalab ku soo saaraan taasoo macno u sameynaysa in la aamino ayaga waxaan arki jirnay company qalab oo qalabka soo iibiya ayagu soo iibsadaan keenaan laakiin wax ka bedeli karin muuqaalka dharka iyo size-ka dharku wax ka bedeli karin laakiin ayagu ayaan kadib waxay go'aansadeen in ay sameystaan warshad u gaara oo ay qalab ku sameeyaan markii warshadii ay fariisiyeen xiriirka kubadda cagtu wuxuu u furay fursad ah mar haday warshad sameysteen in lagu aamini karo inay siiyaan qalab kooxaheena heerka qaran ee ciyaara horyaalada kala duwan fursadaas markii loo furay waxay caawa soo gaartay in la soo bandhigo dharka ay ku soo sameeyeen warshadooda kadib xiriirka kubadda cagtu waxaan amar ku siinay saaxiibadeen oo ku dhiirigelinay in ay kooxaha u soo jeestaan sidii loo qabaleyn lahaa tayadan qalabka arkaysaan xiriirku wuu soo kontrolay waana loo keenay waxaana caawa rabaa inaan maqashiyo bahda kubadda cagta halkan joogta qalabkan ay kooxaha la siinayo in aan saaxiibadeen ku dhiirigelinay tayo wanaagsan markay keeneen haddana inay ku siiyaan si free ah oo aan lacag ahayn wayna aqbaleen waxaa kaloo muhiim inaysan ku ekayn saddexdan kooxood laakiin hadda controlka koowaad in ay noqdeen saddexdan kooxood saddexda kooxood ay yihiin kooxaheennii heerka koowaad mar walba ku lahaa shacbiyadda
bahda isboortiga ama kubadda cagta. waxaa sidoo kale tijaabooyin kale u socdaa etusad oo hadda aan rabnaa inaan ayagana fursad u furno dhinaca gobolada. saa la socotiin xiriirka Soomaaliya kubadda cagta wuxuu bilaabay in state kasta ama maamul goboleed kasta ay dheelaan horyaal kubadda cagta ah, kooxoodana ay qalabeen doonaan haddii la yiraahdo. intaasoo dhan marka la soo koobo waxaa aad muhiim u ah xaggee loo socdaa oo etusad ay u socotaa, xiriirkuse muxuu ka leeyahay in uu etusad gaarsiiyo. etusad waxay u socotaa inay la mid noqoto kambaniyada kale ee caalamka ka jira ee caanka ku ah dharka isboortiga. xiriirka kubadda cagta wuxuu u socdaa xiriirka Soomaaliya kubadda cagta wuxuu u socdaa inuu ku dhiirigeliyo kuna taageerno inaan gaarsiino inay kambaniyadaas caalamiga meesha ay gaareen iyo jidadka ay mareen inaan tusno, maadaama xiriirka kubadda cagtu ay shirkadda aan wax ka qaadan jirnay mar walbaba ee shirkadda ugu caansan ee dharka isboortiga ee Adidas, marmarna qaarna aan ka qaadan jirnay shirkadda Puma. shirkadahaasna meeshaan ay ka soo bilaabeen, maantana caanay noqdeen. ayaguna si dil si dhiirigeliyo waxaan leenahay si degdeg kuwaas kuma gaarayaan, laakiin waxay hayaan wadadooda. qof kasta oo Soomaali oo ganacsi keenana haddii dalkiisa laga dhiirigeliyo waa laga yaabaa oo xaqiiqo waxa ah inuu gaarayo meesha kuwa kale ay gaareen. waxaan rabaa inaan ku soo koobo ma kala maarmaan shirkadaha qalabka sameeya iyo kubadda cagtu ma kala maarmaan. kubadda cagtu qalab ay u baahan tahay, shirkadda qalabkuna waxay u baahan tahay qalabkooda dad isticmaala. laakiin shuruudda noo dhaxaysa oo ku xirnaa waxay tahay inay keenaan qalab tayo leh oo aan kala go'ayn, waqtiga loogu talagalana ay keenaan, dadkuna ay ku qanci karaan, bilicdoodana ay ka muuqato garoonka laguna qanci karo. taas waa mid muhiimka ah. etusad shuruudahan ku xirnay waxaa ka mid ah in ay sanad kasta soo bandhigaan designo ka duwan kuwa hore oo loo isticmaali jiray, oo marka dambena la gaaro koox kasta kooxeena ka mid ah inay helaan micnaha design u gaar ah ayaga oo lala leeyahay oo aan cidna la lahayn oo macnaha ay isticmaali karaan. waxaan ku soo kooba hadalkayga xayeysiin waxaa ku filan raggii inta iga horreeyay oo soo bandhigay. aniga uma istaagin inaan etusad xayeysiiyo, laakiin waxaan u istaagin inaan dhiirigelino ganacsigooda. laakiin ganacsigana waa la dhiirigeliyaa waana la xayeysiiyaa, laakiin waxa la xayeysiinaa maxay tahay? waxaa la xayeysiinaa waxay tahay wixii ay u soo bandhigaan kooxaha markay qalabkooda isticmaalaan ayagaa sheegi doona wixii ay heleen, ayagaa sheegi doona wixii heleen. waxaan ku gabagabaynaa waa mahadsantihiin effortiga aad bixinaysaan. waxaan idiin ballan qaadaynaa inaan ganacsigiina idinku siino gacantaas oo ah gacanta aad ku leedihiin kubadda cagta, maadaama aad ku howlan tihiin in aad kubadda cagta ka hormarisaan dhinaca qalabka. maamulka oo etusadna waxaan kula dardaarmayaa inay ka caajisin meel gaarsiinta qalabka, kana caajisin dhiirigelinta, ayna xoogga saartiin. oo aan rabaa inaan caawi inta uga darsado message yar oo ku saabsan saa la socotaan dhallinyaradeenna bisha Ramadaanka aad u ciyaaraan, gaar ahaan kuwa yarka xaafada aad loogu ciyaaraa. waxaan dhihi lahaa inay qaadin campaign ku saabsan inaan goobaha Ramadaanka sida oo waqtiga abaaraha raashinka loo qaybiyo inaad adinkan xilliga Ramadaanka aad dhar u qaybisaan free. waa masjid